waftigii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ee munaasabadda 18 May kala qaybgalayay shacbiga magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cerigaba ayaa xuskaasi kadib waxay kormeer indha-indhayn ah cagta ku soo dhigeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Cerigaba oo muddo dheer aanay ka jirin wax duulimaadyo ah waxaana wasiirka iyo waftigiisa xaaladda garoonka uga xog waramay maayirka degmada Cerigaba Ismaaciil Xaaji Nuur iyo badhasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro wafdiga sharafta leh isaga wasiira marka naga noqotaan wasaaraddiina ku mashquulina baan ku codsanayna hawsha naga xiran oo magaalku kow ka yahay oo containerka berbera yaallayna ku haysta walaga ka yahay ka shaqo gala baan ku codsanayna waxaan sheegnaa wiigaan shabaab gaarlo anagu waan hawlgalay iyadoo dawladdu wax weydiin ayaanu isku tashanay saddexda baabuur ee halka ku aragtaan labada dabdamiska iyo booladu waxay nagu joogaan $75,000 magaalada noo galay ka urno 55 baan iska bixinay 20 wali lagu leeyahay maarayo noo ballan qaaday wafdu noo soo diray waa la qiimeeyay waxa loo baaday wuxuu noo sheegay in hay'adda ka dalbaday raadiyihii lagu hadlay diyaaradaha calankiina uu noo keenay aad buu ugu mahadsanyahay waa la qiimeeyay fensinkiina madaxweynaha laftiisu uu noo ballan qaaday maayirku markaanu tagnay inuu wixii kharash loo baahdo naga bixinayo runweygii rugleydii iyo graderkii iyo wixii la isugu daray taas oo arkaysan uu naga dhanyahay labadii maqsad ee xafiisyada ahaan lahaa iyo raadiyihii ayaa dhaman intuu ku dhaqaaqay imika fensinku ciidan noo ilaaliyana waanu haysanaa marka la helo mustaqbalkana waanu ku wareejinaa taar insha Allah wasiir waxaan ka codsanaynaa gobolku badda iyo bariga iyo cirkaba uu ka xidhnaaye badda waa neef furanooyin baa qayb baa noo shaqaysay imika barigiina wuu noo wanaagsan waddada waa taasoo isugu kala soo dubadhacsantay madaarka wax badan baa naga xiran oo horumarka iyo dhaqaalaha gobolkaba aad u tarla madaxweynuhu wanaga gaarsiinaysa iyo hay'addii duulistii hawada in madaarkaas loogu dhaqso badan intaanay dagaalin insha Allah aan furtaan haddii loo baahdo oo ka raadiyo keeni weydo noo soo sheegal ku yeelan naga ibsanayni waan isku tashanayna way garan qiimuhu doonaa ku kaco raadiyana waan ugu bushaarinaysaa inaan iibsan karo waan iibsanayno waxaan soo idinka codsanaynaa idinka marsanay intaynaan dagaalin insha Allah in madaarka dadka iidiyo halka ka soo degaan wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa dhankiisa ballan qaaday in xukuumadda Soomaaliland diyaar u tahay wax ka qabashada dib u furista madaarka magaalada Cerigaba runtii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa diyaar u tahay wixii dawladii hore qabtay waxay diyaar u tahay inay kaabayaasha dhaqaalaha ay dhamaystirto dawladani waxa la wixii ay ku kordhin karto gobol wal iyo degmo wal maanta waxaan filayaa inay dawladdan waxa kaabayaasha dhaqaalaha ee qarankan u dhiman inay dhamaystirto diyaar u tahay waan idinka qaadaynaa codsiga muxuu ahaa codsateen ee ballantana hore u qabtay waan idinka qaadaynaa waa geynaynaa waliba waa ku si diiran baan u geynaynaa oo adag baan u geynaynaa oo ballanta ku qaadaynaa iyada iyo containerka dawadii taana idinkaga filan ta kalena waan u geynaynaa hay'adihii ku shaqada lahaa oo idinka ballan qaadaynaa وجابر سيد على جابر بلشاوي كالسن TV Cerigaba.